soo dhawaada dhammaantiin SFC ku soo dhawaada niyuusadu maanta maasha allah isniin bay ahayd suuqyada furmay niyuuso fiican baa soo baxayay xalay xilli dambaa BTC la bamgareeyey 87 mar la geeyey maanta 88 baa maanta mar la geeyey Solano 142 mar laga soo celiyey laakiin hadda 130 bay joogtaa BTC hadda 86 bay taagan tahay saacadda la hadlayo niyuusadu way badnaayeen waxaan arkay niyuusada inta ugu muhiimsan Robert Kiyosaki qoraaga caanka ee Rich Dad Poor Dad wuxuu rumaysan yahay in Bitcoin gaari doonto 180,000 ilaa 200,000 sanadkan dhammaadkiisa 2025 inta lagu guda jiro wararka waxa kale ugu muhiimsanaa kharashaadka celceliska Ethereum ee gas fee-ga wuxuu hoos ugu dhacay ilaa qiyaastii 0.01 halkii maxay tahay customer sidoo kale madaxweyne Trump warqad uu soo qoray maanta wuxuu ku sheegay uu soo saaray liis cusub oo ku saabsan wadamada uu ku eedeeyay khiyaano aan cashuur ahayn ama no traffic cheating waxa la yiraahdo sidoo kale maanta markii horeysay shirkadda Metabalant ayaa iibsatay 330 Bitcoin oo qiimaheedu yahay 28.2 milyan oo dollar taasoo ka dhigaysa wadarta guud ee hadda haystaan 4,855 BTC BTC da uu urursanaysa sidoo kale wararka waxa ugu waaweynaa qiimaha dahabka ayaa maanta jabiyay rikoodh aad maxay tahay rikoodh hore oo isagoo gaaray 3,384 taasoo noqotay heerkiisii ugu sarreeyay abid sidoo kale Shiinaha ayaa soo saaray digniin adag oo ku socota dalalka qorsheynaya inay galaan heshiisyo ganacsi oo lala yeesho Mareykanka haddii ay waxyeello u keenayaan danaha Shiinaha dowladda Shiinaha waxay sidoo kale hanjabaad ku dartay inay si cad u aragto si cad u argudi doonto ama u argoosan doonto sidoo kale maanta Trump wuxuu yiri qofkii haysta dahabka isaga ayaa xeer uu ka dhiganaya qoraalkaas ayuu maanta soo qoray sidoo kale wararka waxa maanta ugu weynaa Bybit CEO-geedii baa wuxuu soo saaray lacagii la dhacay iyo sidii loo dhacay iyo halkii ay wax kala marayaan qoraal dheer baa kale kasoo diyaariyay wada akhrin insha Allah taala wararka maanta waxa ugu waaweynaa MicroStrategy ama Michael Saylor ayaa hadda waxay haysataa Bitcoin ka badan inta ay wadarta ama isu geynta ay haystaan Mareykanka iyo Shiinaha waxa ka badan MSTR ama MicroStrategy shirkadda strategy uu CEO-ga ka yahay isla postigii ku xigay wuxuu Saylor wuxuu iibsaday Bitcoin hadda hadafkuna waa inuu iibsado Bitcoin inta ka badan marka wuxuu iibsaday 5,530 iyo 644 BTC oo wuxuu haystaa qiimaha uu haysta weeye 5,530,644 oo u dhiganta 46 bilyan maanta waxaa la daabacay 1 bilyan oo USDT oo maxay tole lagu daabacay shabakadda Tron sidoo kale wararka maanta waxaa ku jiray wararka maanta waxa ugu weynaa Dutch Bank bankan Jarmalka iyo Standard Chartered shirkaddan Ingiriiska ama bangigan Ingiriiska ayaa ku dhawaaqay qorshahooda inay ballaariyaan ganacsiyada suuqa crypto ee Mareykanka sidoo kale 1 bilyan oo kale ayaa maanta mar kale la daabacay oo maxay tole aan arkayay sidoo kale wararka waxa ugu muhiimsanaa shirkadda ninka la yiraahdo Glus wuxuu si degdeg ah iskaga casilay hoggaanka ururka dhaqaalaha adduunka ee WEF la yiraahdo maanta BTC marka laga imaado wararka iyaga ugu badnayd Michael Saylor ayaa markaa maanta iibsaday maadaama shalay soo dhigay chartigii originalka oo oran jiray waxaan u baahanahay more original maxay tahay orange maanta wuxuu iibsaday 6,556 BTC oo qiimaheedu yahay 550 milyan oo dollar marka aad buu urursanaya axad walba isniin walba ninkaasi uu urursadaa inta badan sidoo kale shirkadda Carousel ayaa daabacday ku dhawaad 250 milyan oo USDC oo lagu daabacay Solana blockchain marka inta markan ka imaado waxa 4tii galabnimo meelahaas hadlayay ninkii Trump waxaanu sheegay in maxay tolay waxay hadlay Mayfedka maanta hadlay Jerome Powell waxaanu sheegay Mayfedka si guud u hadlay Jerome Powell mu hadal waxaanu si guud u sheegay inuu Fedku madax bannaan yahay lana tixgeliyo madax bannaanidiisa sidoo kale marka wuxuu sheegay in saamaynta cashuuraha ee Trafiska laga yaabo inay noqoto mid yar ama mid dhexdhexaad ah marka laga hadlayo dhaqaalaha Mareykanka sidoo kale Trump ayaa haddana isna warqad soo qoray maanta waxaanu sheegay in Powell uu yahay loser sidoo kale wuxuu ugu yeeray Mr. Too Late ayuu ugu yeeray
Jerome Powell. marka waxoogaa waxaad mooday maanta isku tuurtuuris inuu sameynayo odaygu. wararka maanta waxa ugu waaweynaa oo aan arkayay hindiya waxay soo rogtay iyaduna 12 boqolkiiba cashuura oo taraafa oo lagu soo rogay birta ama stiilka si loo xakameeyo soo dejinta raqiiska ee shiinaha. marka